wasiirada arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee Somaliland oo in muddo ah ku sugnaa waddanka Ethiopia ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaanay warbaahinta uga warameen wadahadallo ay kula lahaayeen dalkaasi madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas saraakiil ka mid ah dawladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale shirar kale oo ay kaga qayb galeen magaalada Bahardar ee dalka Ethiopia waxaanay labadan wasiir kula hadleen saxaafadda qolka nasashada ee madaarka aanu la kulanay madaxweynaha Puntland si ay ula socoto Somaliland waa dad nabad jecel nabad bay keentay Somaliland waxay aaminsan tahay dialogue wada hadal wanaag ku samaysan in cid aliyaal cidii wanaag doonaysa ama wada hadal rabta aan u furanahay albaabada Somaliland iyo wasaaraddeedu ay la kulmi karaan cid aliyaal cidii danteeda iyo wanaageeda iyo waxtarkeeda rabta Somaliland waa wadan xor ah oo wali la ixtiraafin hay'adaha kaliya taagan Somaliland xuduud muayyan u leeyahay mid ay ku sameeyeen Maxamed Ingiriisi ka tagay waanu u sheegnay madaxweynaha xuduudda Somaliland halkay joogto nabadgelyo naga dhaxaysa wanaag baa naga dhaxay waxtar baa naga dhaxaysa anaku waxaanu aaminsanahay cid aliyaal cidii aanu la kulmayno ee wanaag rabta ee Somaliland iyo xuduudeeda iyo xaqeeda ilaalinaysa inaan wajhi furan ku soo dhaweyno sidaasaan kula kulanay waana u sheegnay in Somaliland cadaawad ay u haysaa dadka Puntland ku jiray leenahay laakiin Somaliland xuduudeeda iyo xaqeeda iyo aan cid isaga daba taageen marka runtii shir fiican buu ahaa horana saa ula socotay bariyo hore Puntland iyo Somaliland xagga security-ga iska taageeri jireen Nairobi dhowr goor hore ku shireen oo laga wada shaqeeyay xuduudaha inaga dhaxeeyay nabadeynteeda ama ha noqoto xag argagixiso ama ha noqoto xag piracy-ga marka kulli cilaaqaad maadaama aynu jaarno xadwada leenahay inaynu wada hadal wanaagsan yeelana jaarnimo wanaagsan ku wada noolaana ama ayaga ama Ethiopia ama Djibouti sidaas laga ku wada waa waajib Somaliland dhibkum uma aragto inay la hadasho qof kasta oo nabadeeda iyo wanaageeda iyo waxtarkeeda ay tusto waxaan ugu casuumay aniga iyo wasiirka shirka dhacayay meesha la yiraahdo Bahardar waxa ka dhacay shir uu ninkii hore ee مل الزناوي سدح سنة هرتد واحد لها تانا فورم فور سكيورتي in Africa ayuu sameeyay waxa lagu xusay isaga anu sanadii hore waan ka qayb galay aniga Darfur ka yimid UN-ka mas'uuliya imikana labadeeda wasiir baa la casuumay dawlado fara badan baa isugu yimid dawladaha yimid waxa kamid ahaa Suudaan madaxweynaheedii Bashiir oo la kulanay oo ay wasiirku shir la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo wax laga weydiiyay dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley taasi oo ku saabsanay saraakiil Ethiopian oo halkaasi si xun loogu la dhaqmay sida wasiirku sheegay waanu saragnay hay'adaha nabadgelyada waanu saragnay wasiirka arrimaha gudaha waanu saragnay wasiirka kharijiga waanu saragnay runtii arrintaas waa arrin si khalad u dhacday bay ahayd sida ugeed dawladda Ethiopia waxaan isla garanay in ay ahayd arrin khalad ah dhinac kasta waa ka timaado wixii dambana si wanaagsan hadii alla yiraahdo looga wada shaqeeyo cidii dhibaatada geysatayna de kulliba ama ay wax ku cadaadaan talaabadeeda halkeeda weeye laakiin maanta wax dhib oo ka taagan haba yaraatay ma jiro Maxamed Faarax Umaade Somali Channel Hargeysa